Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cooking with Mama Halima. Kusoo dhawaada Cooking with Mama Halima. Maanta waxaan ilhayaa chicken, butter chicken. We're making butter chicken. Cunto hindi macaan waa kana ka faa'iideysta. Waxaa la dhahaa chicken butter or butter chicken. Inshallah, hope you guys like the video. Make sure to subscribe and like and share. Okay, we're gonna start off with the chicken. We're gonna add Maggi, a tablespoon of Maggi. Waxaan ku daraynaa beef. Hadda waxaan ku darayaa paprika. We're gonna add a paprika. Kastoo yar baan ku firdhinayaa. And then a pinch of black pepper. Wax yar waxaan ku darayaa. Wax yar waxaan ku firdhinayaa black magaciisa filfil. Okay, kastoo yar aan ku filfiliya. Haddana turmeric. We're gonna add a tablespoon of turmeric. And another tablespoon is right there. I'm using that kind of turmeric. Turmeric isticmaalina. Another tablespoon of curry powder. Isticmaalina xawaaji curry powder. Waxay okay. Qaado kale waxaan isticmaalina garam masala. And then we're gonna add any kind of garam masala, any kind. Hal qaado baan ku darayaa. Kan wuxuu yeelaa dhadhanka dhan. This is what makes it taste, guys. This is the garam masala. You could use any kind of garam masala, but I'm using this one for today. And waxaan haddana ku darayaa waxaan ku darayaa xawaaji dhudhuub. We're gonna add a tablespoon of cumin seeds. And a pinch of salt. Waxaan ku darayaa qaado magaceeda wax yar oo cusbo oo ku shubayaa markaas laba mar oo ku shubay. And then we're gonna add a cayenne pepper. Waxaan ku daraynaa cayenne pepper. wax yariis ugu firdhinaysaa sida oratid basbaaska. Kan kuleel waaye iska ilaaliya. And then olive oil. wax yar olive oil ku darayaa. And then a cup of plain yogurt. wax yarkaasoo waa ku darayaa. koobkaas aan ku shubayaa. Now I'm gonna mix all the ingredients together and let it marinate for at least 30 minutes. Okay, saas oo xirayaa. And then after that we're gonna slice some onions. wax yar jarjareynaa hal oo magaciisa oo basal And then we're gonna slice our onions. jarjareynaa. And then garlic. We're gonna chop some garlic and some tomatoes. And then I'm gonna slice some tomatoes like an add magaciisa basasha iyo toontaas oo jarjaray. Hadda iyo sinjibiilka waa kaaye oo caadi And then I'm slicing 2 tomatoes together. We have tomatoes, garlic, and ginger, and onions. Hadda waxaan ku darayaa olive oil iyo wax yar oo butter We're gonna add olive oil into a pan and unsalted butter, half of unsalted butter. And then after your chicken is marinated, you're gonna add it into the pan. Hadda waxaan ku darayaa magaciisa chickenka oo khamiirine. waxaan ku daraynaa panka ku saaraynaa. waa karinaynaa ilaa oo size noqdo. And then we're gonna mix our chicken together and until it becomes dry. Stir. Okay. soo mixinaysaa oo soo laabanaysaa ilaa oo ka karaayo saan noqday. So you stir for about 6 to 5 minutes.
it should be looking like this. noqonaya hada waa ka bixinayna panka waxaa ku dareynaa yaanyadeen iyo waxyaala oo soo jarjarnay hada waa ka karinaya oo fry gareynaya and then in the same pan I'm gonna add another olive oil into the same pan and then some onions waxaa ku daraya olive oil iyo basashii soo jarjaray and then some garlic and ginger. We have 4 slices of ginger and tomatoes. We're gonna add our tomatoes and let it simmer for about a good 5 minutes or 6 minutes. At the last card, we're gonna fry them together, the onions and the garlic and the ginger wakai, and then I'm gonna simmer it for 5 minutes to 6 minutes. After you're done, wakai, it should be looking like this. To هذا واي saasuu waa walaaqeena markaasna waa soo shiideena and then we're gonna blend our tomatoes hadana meesha ku shubaya waa soo shiidaya it's blended. I'm using the same pan waxaa ku shubaya magaciisa panka hadda isticmaalaye waxaa ku shubaya wixii soo sameyn then I'm gonna rinse it out waa kusoo tirtiraya waa kaay oo ku shubi. Sorry guys, I forgot to record the chicken, but here it is. waa hilmaame intaan inta siiyo markii ku shubaayo chickenka waa kana saan walaaqaya waa kana saas waa kay saanay noqdeen hadda waa sii walaaqaya ilaa kastoo cabaar kadib oo wax walba isgalgalaan. I'm gonna mix them together and then after that we're gonna add a little bit of yogurt. This is optional, you don't have to add a yogurt. haddii rabtiin waa ku aad gareyn kartiin haddii rabtiin waa iska dhaaf kartiin waxaan ku shubayaa wax yariska oo yogurtka ama macaan oo caraf u yeelo waa kaay saas waa ku walaaqaya markaan ku walaaqo xalba isku dardaraya. I'm gonna mix all of them together then let it simmer for a little bit about 8 minutes or 10 minutes markaas waxaa ku dhaafeynaa hadana 6 minutes or 10 minutes hadad waan usoo laabaneynaa ilaa soo budbuta kababaxayo markaas waxaa ku daraya cusbo markii usoo laabto wax yar cusbo kale kusii daraya waa kaay haddii rabtiin waa ku daran kartiin haddii rabtiin waa iska dhaaf kartiin. It's optional, you don't have to add salt. hadda waa kaay waa sii walwalaaqaya oo usoo laabane waa kaay markii dib waa sii walwalaaqaya waa kaay haddana waxaan ku darayaa heavy cream. We're gonna be adding some heavy cream. It's waxaa isticmaal kartiin caano garoor haddii rabtiin laakiin ani waxaan isticmaalayaa heavy cream. We're gonna add heavy cream markaas waxaa ku darayaa wax yar oo magaciisa kabsar caleen we're gonna be adding some cilantro waa kaay cilantro magaciisa waxaa ku qurxinaya kabsar caleen and then I'm gonna add another I'm gonna add basil. This is optional, you don't have to add basil. If you don't have it, you don't have to use it, but basil just makes it taste better for me. But yeah, waa kaay basilka waa soo bixiye markaay saasuu egyahay intaa isticmaashid maahan aniga la isticmaalaya sii kabsar caleenta camal loo isticmaalaya waxaa ku cunaya bariis and then I'm gonna eat it with some rice. Okay, if you guys need a tutorial making the roti, the chapati, right now I'm going to be adding some cilantro on the rice just for a little bit of decoration. Okay, I'm gonna be adding some chicken butter to the rice. Okay, share, subscribe, like. If you're new to this channel, please subscribe for more videos. Assalamu alaikum warahmatullahi